Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo ku sugan dalka Turkiga ayaa uga mahadceliyay bulshada Galmudug gaar ahaan kuwa magaalada Dhuusamareb sida ay u soo dhaweeyeen wafuud kala duwaneed ee ka qayb gashay shirkii ka dhacay magaaladaasi. Waxaan u mahadcelinayaa reer Galmudug gaar ahaan bulshada caasimadda ah ee wax ka yar 2 maalmood ku martiqaaday wafuudda federaalka oo ka badnaa 1000 qofood iyadoo magaalada aysan lahayn guryo waaweyn iyo hoteelo. Waxaan rajeynayaa in shirka kale ee ay doorkooda qaadan doonaan, ayuu yiri madaxweyne Qoorqoor. Sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa dalbaday in laga fogaado wax kasta oo lagu fashilin karo shirka magaalada Dhuusamareb ee la filayo in uu ku dhexmaro madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira. Hadalkan ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor waxa uu ka sheegay xaflad lagu soo dhaweynayay oo lagu qabtay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Dhawaan ayay ahayd markii shir u dhexeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulada dalka ka jira uu ka dhacay magaalada Dhuusamareb ee caasimadda Galmudug.